meeshaasi waxa ay 3 dhibcood waqooyi ka xigta xariiqa dunida laba u kala qaybiya waa halka uu ku soo fataho webiga Jubba oo ku yaala dacalka koonfureed ee Soomaaliya dareemada waxa ka sii dambeeya dhir iyo duurjiqa geedahana waxa ka sii dambeeya webiga Jubba oo ka mid ah labada webi ee dalka tuulooyin ayaa ku filiqsan agagaarka Jubba ee carrasanka ah laakiin waxa ay halis galaan kolka webigu soo fataho dadka ku nool agagaarka webigu waxa ay u dhaqmaan sidii ay weligoodba u noolaayeen noloshuna ma dhib yara webiga ayaa haddaba waraabiya dhulkana waxa ku nool dadka dhulkaasi warshado waaweyn oo caynkaasa male xooluhu waxa weeye shayga ugu weyn ee ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed looda saraca iyo dadkuba waxa ay ku nool yihiin biyaha webiga Jubba webiga Jubba waxa uu ku daraa badweynta Hindiya khayraadkiisana lama xisaabin karo Soomaaliyana kama maarmi karto khayraadkaasi 1976 ayaa haddaba la bilaabay mashruuca khayraadkaasi lagaga faa'iideysanayo صبحاي لرها وصبحاي magaalada Muqdisho xukuumadda kacaanku waxa ay ku dadaalaysay tan iyo 1969 sidii dalku isaga filaan lahaa xagga cunnada waxyaabaha ahamiyadda gaarka ah la saaray haddaba tan iyo 1974 waxa ka mid ahaa xaggan sonkorta kadib kolkii qiimaha sonkorta uu cirka isku shareeray seeladaha caalamka waxa guddidu haddaba soo gorfaysay in loo baahan yahay iskaashi lala yeesho wadamada aan saaxiibka nahay xagga maaliyadda waxa lala kaashaday wadamada Sacuudi Arabiya iyo Abu Dhabi xagga maamulkana England There are probably a number of reasons, but my own view would be that in the first place you got that. 1975 sharikada Booker la yiraahdo ee beeraha ayaa dawladda Soomaalidu qandaraas ku siisay in ay soo diyaariyaan sahankii hore ee meeshaasi mashruuca laga dhisayo. Contractors in their original proposal said that they needed 32 welding sets. Daanta galbeed ee webiga Jubba waxa ay ka dhiseen 8,000 oo qoodi oo sonkor ah sharikadaha kale ee la yiraahdo Wimpy iyo Molim ayaa waxa wada jir loo siiyay qandaraas ay ku dhisaan iyaguna warshad soo saarta 70,000 oo tan sanadkiiba sharikada kale ayaa iyadana waxa la siiyay qandaraas ay ku soo dhisaan magaalo loo dhiso shaqaale 4,000 oo qof ah sharikada Booker waxa kale oo la qaabilsiiyay tababarka shaqaalaha maamulka warshada waxa la bilaabay haddaba in la calaamadeeyo soodintii mashruuca 1976 khubaradii ugu horeysay waxa ay ahaayeen sahamiyayaal eegaysay meelaha ugu habboon in laga jeexo faraha iyo warshada iyo magaalada meelahaas oo dhan waxa laga qaaday ciid la tijaabinayay jaadkeeda waayo waxa laga maarmaan ay u tahay meesha laga beeri doono qasabka sonkorta dabeeto xigtay sahan lagu baarayay tafaasiisha webiga Jubba xagga dhererka xagga xadiga biyaha iyo dhadhanka biyaha sanadka oo dhan kolkii uu dhammaaday haddaba sahankii hore waxa la goostay in warshada iyo magaaladaba laga dhiso agagaarka tuulada la yiraahdo Mareeray oo ku taala fartamaha degmada mashruuca Mareeray waxa kale oo ay ahayd meel muhiim u ahayd xagga shaqaalaha sahamiyayaashii hore waxa soo raacay aqoon-yahanada xagga beeraha oo abuuray qasab shinni u noqda beeraha sonkorta marka dambe 3 bilood haddaba kadib kolkii qandaraaska la saxay ayaa waxa la gooyay duurkii qasabkii shinnida noqonayana waa la abuuray dhulkii duurka haddaba laga gooyay ayaa laga soo guray xididadii oo dabeeta la gubay kolkaasaa dhulkii la qoday oo la simay oo loo habeeyey qaabkii beeraha
qasabka sonkortu wuxuu u baxaa sida naqa ama tigaada wuxuu u baahan yahay biyo badan iyo hawo diiran oo u dhaxaysa 20 ilaa 40 darajo haddaba biyo badan iyo hawo diiran waxaa loo daayay webiga Juba kolka la beerayo qasabka waxaa loo googooyaa xidhmo gaaban oo geed baa ka soo baxa kala goyska xubnahaasi u dhaxeeya kolka sanad walba la gooyo waxa ay soo biqishaa haddaba 4 ilaa 5 goor inta aan loo baahan mid kale oo dib loo beero dawladdu waxay ugu tala gashay in iliilado ama faro lagu waraabiyo mashruuca turbadiiba waxaa la sii qorsheeyey farihii waraabin lahaa iyo biyashubyadii iyada oo la joogo sahankii hore oo aan la gaadhin shiniyeyntii beertaba sahanno kale oo dheeraada ayaa lagu sameeyey hagaajin iyo isbeddello lagu sii dhimayey kharashka Use this natural feature and make KND1 go down this. I see, but at least we have 3 or 4 kilometers of free drive. waxaa markaasi la filayay in sonkorta la soo saaro bartamaha sanadka 1980 saddex bilood kadib kolkii la saxeexay qandaraaskii weynaa ayaa waxaa la abuuray oo baxaysay xundurtii mashruuca sanadkii hore bartamihiisiiba waxaa la bilaabay qasabgoyntii beerihii hore dabeeto waxaa la ku qiyaasay miisaanka qasabka kala jaadka ah ee go'ayay si loo garto nooca ugu habboon degmadaasi xarunta sharikadda beeraha ee buukar ku leedahay magaalada London waxaa ka soconaya haddaba qorshaynta meelaha lagu rakibayo makiinadaha biyaha qaybinaya ee beeraha gaarsiinaya iyadoo haddaba wax toosa oo isgaarsiina aan lala lahayn meesha warshada laga dhisayo ayaa warka ka imanaya uu yaraa dabeeto waxaa badatay booqashadii lagu aadayay meesha la yidhaaho mareeray si loo soo ogaado xaqiiqada iyo mashruucu sida uu socdo dhibaatooyinka yarar mooyee mashruucu sidii loogu talagalay ayuu u soconayay $1,000 per hectare. We expect this to be in the range of $1,200 to $1,300 per hectare. wax kasta sidii la filayay ayay u dhaceen xitaa roobkii wuxuu da'ay xilligii la filayay gugii hore ee mashruucu socday roobku ma kala qaadin waxaase ka sii daraa Noofambar 15 ayuu haddaba webigu soo fatahay oo uu xidhka jabiyey Eric Henderson oo ka tirsan sharikadda Buukar ayaa filin ka qaaday Mareeray oo laga daadgureynayay dadkii intii webigu aanu soo fatahin dabeeto waxaa la sameeyey moosas lagu ilaaliyo xerada iyo beeraha wadooyinkii way go'een oo sida qura ee lagu bixi karaa waa dayuurad Noofambar 22 ayaa mashruucii sonkorta ee Juba laga qaxay oo waxaa la joojiyey qorshihii tafaqiyadiraa ee bilo taxadirka lagu hayay waxaa mashruucaasi lagaga tegay shaqaale kooban oo iyagu hagaajiya moosaska biyihii soo fatahay waxay noqdeen masiibo mashruucii $150 malyan ahaa ayaa ku dhawaaday inuu qaraqmo daadkii wuxuu la tegay 6 bilood oo qorshihii mashruuca ah shaqaalihii laga daadgureeyey mashruuca waxa ay ku sugayaan Kismaayo inta wax la kala hagaajinayo hawl intii ka badan ayaa timid ugu horaantii shaqaale loo qoro in ay kabaan khasaarihii beeraha gaadhay oo ay caawiyaan sharikadihii dhismaha oo hawlahoodii ay dhaqso u bilaabanayaan dhismaha guryaha waxaa weli loo raadinayay maraaq laga qodo nuuradda muddaase la raadinayay markii dambe mid baa laga helay Kismaayo agteeda oo 100 kilomitir oo qaaliya xagga gaadiidka u jirta Mareeray hawshii waxaa dib loo bilaabay kolkii daadkii joogsaday ileen Mareeray wado fiican ma lehe kolkii injineeradu yimaadeen ayaa waxa ay bilaabeen wado gaadiidka culus mari karo kolkii ay bilaayadii baxday ayaa waxaa mashruucii yimid sharikadihii Wimpy iyo Mowlam roobabkii dambe kolkii ay da'een ayaa makiinadihii ciid gurka ahaa oo dhan waxaa lagu kacshay in ay dhisaan gidaar biyaha cesha oo lagu dadbo webiga sintiisa
hawshii mashruucu haddaba imikay badqab ku soconaysaa. qaybtii hore ee sanadka intii ka hadhay waxaa la xoojinayay mashruuca. waxaa xilligii loogu talagalay dib looga dhacay guryaha mashruuca loo dhisayey. waxaa haddaba maalmuhu ku bilaabaynayeen iyada oo hawada la saadaalinayo oo la eegayo sida ay maalintu noqonayso. webiga qarkiisana weli waxaa maalin walba laga tijaabinayaa heerka biyuhu marayaan. beeralayda mashaariicda u shaqaysaana waxa ay baranayeen sida mashaariicda waaweyn ee caynkaasa ee beeraha looga shaqeeyo. shaybaadh la sameeyey ayaa joogta loogu baadhaya haddaba cusbada ku jirta ciidda inta ay leeg tahay si loola socdo biyo waraabinta beerta iyo qaabka biyo shubka. waxaa aakhirotaankii la bilaabay hawshii sharikadda dhisaysay magaalada mashruuca oo hawlaheedii uu daadku dib u dhigay ileen aasaas oyan lama dhigi kare. magaalada jilib ee dhow ayaa lagu tijaabinayey shaqaalaha loo tababaraya mashruuca. mashaariic fara badan oo xagga horumarka ayaa dalka Soomaaliya ka socota, sidaas darteedna shaqaalihii xirfadda lahaa wuu yaraaday. kolkaasi waxaa loo baahday shaqaale xirfad leh oo gacanta ka shaqeeya oo aqoon dheeraad ah loo sii kordhiyo oo gala tababarka dheer. waxaa nasiib wanaag ahayd in ololihii aqoonta lagu gaadhsiinayay reer miyiga wax weyn uu taray oo dad fara badani mareeray ay ku jireen dugsiyadu oo ay buuxeen. kolkii sannad hawshii socotay ayaa waxa soo baaba'ayay dhibaatooyinkii shaqaalaha soo food saaray. cunnada oo dhibaato ka taagnayd ayaa iminka laga haqabeelay. guryaha ayaa weli dhibaato ka taagan tahay inkasta oo ay dhisan yihiin dhismo cusubna lagu hayo. wakhtiga soo socda ayaa guryuhu intaasi ka sii badan doonaan. No problem. No way, man. No way. mar haddii mashruuc u weyn yahay sida kan mareeray wax kastaa way isku xidhan yihiin. warshad ku taalla England ayaa sharikadda la yidhaaho Fletcher iyo Stewart waxa ay shubayeen qalabkii cuslaa ee warshadda sonkorta. warshad yar oo naqshada ayaa la sameeyey. dabeeto injineeradii ayaa darsayey meelaha dhibaatooyinkaasi ay ka iman karaan iyo sida haddaba wax looga beddeli karo wixii xumaada. intii aan la soo dirin ayaa makiinad kasta oo sharikadda Fletcher ay samayso waxa lagu tijaabinayay warshadda dhexdeeda. shaqaalaha warshadda rakibayana waxa weheliya nin Soomaaliyeed oo la tababarayo. waa kii ugu horreeyay qaar badan oo lagu tababari doono dalka Ingiriiska. sanadkii labaad bartamihiisii ayaa waxaa laga rarayay furdadaha dalka Ingiriiska makiinadihii warshadda mareer. hawshaasi oo si xawli leh ku socotay. 8,000 oo kilomitir ayay u jirtay. waxaa Kismaayo laga rogayay qalabka warshadda oo dhammaantiiba ka yimid dibadda. Okay, can you confirm that you will be coming down on SBS flight tomorrow? Over. magaalada Muqdisho ayaa waxa ay noqotay taarkii isku xiriirinayay London iyo Mareeray. Okay, also there is one point from yesterday. si kasta oo xiriirku uu u leeytay waxba la'aan buu dhaamay inkasta oo aanay sidii la doonayay arrimuhu u socon. No, the reception has suddenly gone very poor. Can you repeat? Over.
xiriirka kale ee mashruucu la lahaa dibadda waxay ahayd dayuuraddan oo hadda si fiican looga arko meelaha laga dhisayo warshadda iyo guryaha oo aasaaskoodii ku shaabadaysan yahay dhulka. dayrtii sannadkii labaad ayaa mashruuca waxa soo booqday wafdi ka tirsan waddamadii carbeed ee wax ka gaystay maaliyadda mashruuca. isla markaasi waxaa la bilaabay dhismihii birta ee warshadda. si loo waraabiyo beeraha badan ee warshaddaasi ayaa waxaa loo baahday in biyaha webiga Juba lagu soo jebiyo far weyn oo dhex qaada bartamaha mashruuca. sannadkii labaad bartamihiisii waxaa agagaarka webiga laga dhisay 2 makiinadood oo waaweyn oo biyaha ka soo nuuga webiga. waxaa duurka sii xulaysay far 30 kilomitir ah oo mashruuca waraabin doonta. farahaasi waxaa la doonayay in ay ku beegamaan hawlaha kale ee mashruuca ka socda, waayo lama beeri karo qasab haddii aan marka hore la samayn faro amaba iriiradaha biyuhu ay u maraan. qaybaha farta weyn ee la dhammeeyey waxaa lagu rakibay makiinado biyaha gaadhsiiya beeraha. 90% biyaha beertu waxa weeye kuwa qasabaduhu dusha kaga keenaan beerta. waxaa samaysay sharikadda la yidhaaho Iridalco. dhulka faraha badan ee qasabka imika laga beerayey waxaa durbadiiba la dhigayay qasabadaha biyaha loogu talagalay in ay beeraha waraabiyaan. sannadkii ugu horreeyey ee hawluhu bilaabmeen duurgoyntu aad umay socon, waayo waxaa hakiyey daadkii soo rogmaday kolkii webigu fatahay. sannadkii labaad oo dhan iyada oo cagafta waaweyni baroosinka xidhatay ayaa waxaa hurro baas lagu qaaday geydo goontii. sannadkii labaad dabayaaqadiisii warshaddii way weynaatay. qalabkii warshadda intiisa badanna waa la rakibay. waxaa la sii kordhiyey xidhiirintii hawlaha warshadda. subax walba waxaa shira injineerada warshadda iyo maamulaha mashruuca oo gorfeeya umuurta. kolkii hawsha warshaddu ay dhammaatay badankeedii ayaa waxaa la kordhiyey hawlihii kale ee daaraha. waxaa laga soo kabanayay baa la yidhi markaasi wakhtigii ku lumay daadkii webiguu soo rogay. waxaa mar kale suuragal ay u ekaatay in sonkor la soo saaro 1980 sidii hore loogu talagalay. maraakiibtii England ka keentay qalabka ee ka dejisay Kismaayo ayaa imika dejisay qaybtii ugu dambaysay ee qalabka warshadda. ayaa baabuurta xamuulka ka furta furdadu waxa ay beegsadaan burcuudda xeebta. waxaa taasi ka dambeeya banka dheer ee qabta Mareeray oo 100 kilomitir u jira.
rakibaadta qalabka warshadda ee culus oo u baahan dawrid ayaa ahaa arrin dhib badan dheeldheel ma galaan oo sahal ma aha sida loo dhigayo biraha culayskoodu yahay 16 tan oo waa khatar haddii ay siibtaan waddada laamida ah ee ka timaada Kismaayo ayaa waxaa ku taallada xariiqa dunida u kala qaybiya labada meelood baabuurta mashruucuna 40,000 oo goor ayay ka tallowday xariiqaasi roobabka hufada leh ee mareeray kolka ay da'aan dhibaatay la yimaadaan waxaa la joojaa dhammaanba hawlaha ka soconaya dibadda ilaa inta roobku ka joogsanayo kolka roobku qaado ayaa waxaa la tiriyaa gaadiidka ku xayirma dhiidhida dhibaatooyinka had iyo jeer taagan kolka roobku da'o waxaa ka mid ahaa saacadaha ku luma inta gawaadhida dhiidhida laga saarayo 3 saacadood marka ay laamida hayaan ayaa gawaadhidu ka leexataa Kismaayo oo waxa ay sii qaadaan waddo kale oo jeexan ilaa 40 kiiloomitir oo kale inta aanay gaadhin Mareeray mashruucu wuxuu u ekaaday magaalo yar waxaa lagu jiraa 200 oo aqal waxaa jira dukaamo iyo cusbatar yar waxaa abuurantay beel lixda galabtii ayay baabuurtu gaadhaan Mareeray waxaa dhaqso u iman doona qalabkii cuslaa ee warshadda waxaa dhammaan doonta hawshii dhismaha waxaana la bilaabi doonaa hawlihii tijaabada sanadkii labaad dabayaaqadiisii qasabadaha biyuhu waxa ay waraabiyaan ilaa 2,000 oo qoodi oo qasaba oo baxaya waxaana beeran ilaa 4 dalool mashruucii waxa uu ku soo noqday qorshihii iyo xilligii loogu talagalay sanadkii saddexaad bilowgiisii waa tii ugu horaysay makiinadaha soo saara biyaha makiinadahaasi oo ka sarreeya webiga waxaa loogu talagalay in si dib yar loo hagaajiyo xataa kolka webigu heer sare uu gaadho inta u dhaxaysa makiinado labalaba ah ayaa ku rakiban waxaana loogu talagalay in ay biyaha u soo qaadaan farta mashruuca waxaa ku dadban irido gacanta lagu xidhi karo amaba lagu furi karo hadba sida la doonayo makiinado kale ayaa dabeeto biyaha ka soo dhura farta oo gaadhsiiyo beeraha mashruuca oo dhan markii ugu horaysay ayaa waxaa inoo muuqda xaddiga weyn ee mashruucu inta uu leegyahay intaasi waa 2 beerood oo keliya 8 meelood kolka mashruuca laga dhigo ee loo qaybiyo waxa weeye uun meel keliya 3 bilood ka hor dhulka aad aragtaan wuxuu ahaa kayn jiqa iminkana waxaa intaa badan ku beeran aala sonkor May 1980 wax kasta oo dhibaato ah oo la soo maray waa taa warshaddii iminka dhisan oo waxa lagu dhameeyey waxaan aad ugaba badnayn 2 sannadood waxaana la bilaabayaa soo saaritiinkii sonkorta kolka mashruucu dhammaado waxaa la filayaa in warshaddu ay sifayso oo ay soo saarto 3,400 oo tan oo sonkora maalintiiba kolka la gaadho wax soo saaritiinka buuxa ee warshaddana waxaa la filayaa in ay soo saarto 70,000 oo tan oo sonkorta cada sannadkiiba warshadda waxaa rasmi ahaan u furay xogayaha guud ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre
oo aad u xiiseeyey inuu arko go'aanka ugu horreeya ee mashruucaasi oo ka mid ahaa maalgelintii ugu weyneed ee dalka kolkii warshaddu dhammaatay ayaa waxaa muhiim noqday tababarkii waxaa casharo rasmi ah loo bilaabay sannadkii hore dadkii ka shaqaynaya meesha hase ahaatee weli dad cusub oo la tababaro ayaa la qorayey intii dadka cusub la qorayey ayaa waxa barbar socday tababarrada shaqada gudaheeda oo la tijaabinayey midho fiican ayaa soo baxay oo ay yeelatay ogost 1980kii waxaa mashruucu diyaar u ahaa in lagu bilaabo hawlihii baayac mushtariga qasabka la goynayo waxaa marka hore la gubaa galabnimada marka hawadu ay taagan tahay ee aan dabaylo jirin waxaa loo gubaa qasabkaasi si loo kharameeyo oo looga dilo bahallada halista ah oo dabeeto ay dadku kolkaasi u gali karaan oo beerta ay u goyn karaan qasab goyntu waxa ay bilaabantaa waa berigii aroorta xigta habeenka qasabka la gubo shaqaaluhu dhammaantoodba way ku cusub yihiin hawshan tan iyo markii mashruucu uu ballaadhay waxaa ku yaraa dadka beeraha ka shaqeeya mashruuca waxaa loogu talagalay in dad badani ka shaqeeyaan waxaana loo baahday markaasi dad ka badan intii mareeray degganayd dabeeto dad kale oo dibadda laga keenay ayaa mashruuca laga shaqo siiyey qasabka marka la gooyo gawaari ayaa lagaga soo guraa beeraha oo waxaa lagu wareejiyaa qaar kale markiiba waxaa la geeyaa warshadda si loo jamuuqo barkii meel la dhigto la buurto la buraarugine barqadii la kaco bilaash lee la cunaa 30 kilomitir oo waddo sonkoreeda ayaa isku xidhiidhisa mashruuca dabo ilaa dacal inta u dhaxaysa baabuurta qasabka ka keenta afarta gajaho ee beeraha iyo warshadda oo ku taalla bartamahooda aad bay u weyn tahay masaafadu oo u kala fog tahay aanisbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne aanisbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne meesha qasabka lagu ururiyo ee warshadda wiish ayaa qasabka ka dejiya gaadiidka dabeeto qasabka waxaa la saaraa jaranjaro socota oo baahisa waxaana ay markaasi ku wareejisaa jaranjaro kale oo iyaduna u dhiibta qolka midiyaha ee warshadda halkaasi oo lagu jeexjeexo qasabka qasabkii oo aalihii muuqa lahaa dibadda uga soo baxay ayaa dabeeto lagu wareejaa makiinado maroojiya oo afara muuqa laga maroojiyo aalaha ayaa sii dhex mara dabeeto shaandhooyin iyo qasabado ilaa loo gudbiyo aqalka sifaynta ee warshadda dabeeto aalaha ayaa lagu wareejiyaa makiinado kale
4 goor ayaa hawsha caynkaasa lagu celceliyaa kolka ugu dambaysa waxaa lagu daraa biyo si muuqa looga soo saaro dhinaca kalena waxaa ka soo baxa qarankii aalaha kaasoo noqda shidaalka warshaddu biyaha ku kululaysato oo dabeeto uumiga ka baxa uu ku shaqaysiiyo makiinadaha sonkorta qaydhiin bisleeya muuqa sonkorta ee la maroojiyey ayaa waxaa lagu shubaa haamo kulayliya oo waxaa lagu daraa dawo sifaysa sonkor sifaysan oo nadiifa ayaa loo baahan yahay shaybaadh warshaddu ay leedahay wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fiican Soomaaliya waxaana si joogto ah uu u tijaabiyaa muuqa sonkorta iyo waxa lagu darayo heer kasta muuqii oo la kariyey oo la shaandheeyey lana sifeeyey ayaa lagu shibaa haamo kolkaasaa biyihii laga saaraa oo muuqa la adkeeya hadba waxaa la eegaa sida muuqu u kala miirmayo kolka la fadhiisiyo ayaa muuqa sonkorta waxaa lagu shubaa haamo madhan oo hawada laga saaray dabeeto waa la kariyaa oo biyaha laga saaraa ilaa sonkortu soo baxdo sonkorta iyo miidda isku jirta ayaa dabeeto lagu wareejiyaa haamo kale si loo kala saaro kolka haamahaasi lagu lingaxo ayaa waxaa la lulaa faarka ka baxa miidda sonkorta waxaana halkaasi ku hadha sonkorta waa qallayl markaasi sonkortu oo waxaa lagu soo saaraa majarafado amaba makiinado gacmo leh sonkorta waxaa dabeete lagu sii qallajaa jaranjaro socota ugu dambaysta waxaa laga shubaa jawaano oo waxaa lagu qoraa sonkor cad sonkortii ugu horraysay ee warshadda Jubba waxaa la soo saaray iyada oo tijaabo ah Juulaay 1980 2 sannadood iyo 11 bilood kadib kolkii la saxeexay qandaraaskii dhismaha kolka warshaddu gaadho xaddiga loogu talagalay 70,000 oo tan oo sonkorta cad ah ayaa ka soo bixi doona warshadda oo dalka lagu cabbi doono mashruucaasi kuma koobna uun sonkor kaliya 3 sannadood dhexdood ayaa waxaa kayntii jiqda ahayd ka soo baxay magaalo si fiican ugu xidhan magaalooyinka kale ee dalka magaalo leh dukaamo garoomo lagu ciyaaro dhakhtarro iyo dugsiyo degmadaasi waxa ay dunida la wadaagtaa sancada warshadaha Sebtembar 1980 waa maalintii la furay warshadda waa taa badhankii la tuujiyey daarayay warshadda sonkorta ee Jubba oo bilowday wax soo saaritiinkii sonkorta dhibaato kasta oo lala soo kulmay waa taa warshaddii socota xilligii loogu talagalay maalintii la furay mashruuca waxaa lagu guulaystay dagaalkii lagu qaaday xagga dhismaha oo dhammaaday waxaase la bilaabay dagaal kale oo ah in had iyo jeer lagu dadaalo wax soo saaritiin xooga ilaa inta dalku isaga filaanayo sonkorta oo weliba uu qaar kale dibadda u dirayo hawshii hore waxaa lagu gaadhay dadaal saas oo kale ayaa tan dambana lagu wadi doonaa saarka beeraha waa barwaaqi wax soo saarka beeraha waa barwaaqi macdan baa ka buuxde aynu hoos u baxarne
macdan baa ka buuxdee aynu hoos u baarnee